Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ardayda sharafta leh, this is your teacher Khalid Yonas Usman. Welcome to lesson 10. Waxaynu soo gaarnay casharkii tobanaad ee taxanihii aynu kor ugu qaadaynay the speaking Englishka ku hadalkiisa. Maanta waxaynu dhigan doonaa when you want to enter into someone's room or a house, qof gurigii marka aad galayso hadallada aad kaga codsan karta in lagu ogolaado inaad guriga gasho, xafiiska aad gasho ama qof qolkii aad gasho. Waxaad weydiin qof albaabkiisa markaad hortaagan tahay, may I come in? May I come in? May I come in? Please baad raacin. May I get into the class? Ma gali karaa fasalka fadlan? Okay, saddexdan waxaad isticmaalaysaa markaad qofka aad tusayso ixtiraam. Okay, qof aad ixtiraamayso waa fasax baad ka qaadan, hadallo dareenkiisa taabanaya aad kula hadli. Hadalladan polite words ba la yidhaahdaa, hadallada isticmaalaysa markaad qofka isticmaalaysid. May I come in? May I come in please? May I get into the class? Waayo adaaba lagu ixtiraamayaa oo adaaba lagu weydiiya su-aalahan, maxaad ugu jawaabi doontaa? Qofka hadduu ku yidhaahdo may I come in oo aad rabto inaad ku tiraa soo gal, waxaad ku odhan yes you may. May I come in? Yes you may. Ama waxaad dhihi kartaa do come in. Dabcan soo gal, do come in please. Ama waxaad dhihi kartaa come on please. Ama waxaad dhihi kartaa get in please. Qofkan banaanka kuu taagan albaabka kuu gargaraacaya, haddii aanad garanayn cidda uu yahayna waxaad dhihi kartaa who is that? Waa ayo? Waa aniga hebel hebel. Come in baad ku leedahay. Hebelow, Cashay, Faadumoy, Cabdiyow, come in, soo gal. Ama waxaad dhihi kartaa come on in please, welcome. Inta waad dhihi kartaa, qofkii waad ku soo dhaweyn kartaa. Waayahay qofkii waad soo gelisay, uu kuu soo galay, wuxuuba noqday qof aanad filanayn, qof aad muddo kala maqnaydeen, qof waddan kala joogay, qof aad wax soo xiistay. Marka hadda waxaad isticmaalaysaa erayadan kale. Okay, qofkii waa kuu soo galay, may I come in buu ku yidhi, yes you may baad ku tiri, xaafadan soo gal, wuu soo galay. Wuxuuba noqday qof aanad sugayn. Oh baad tiri, Khaalidow ma adigiiba? I don't believe my eyes. Indhahayga waan aamini lahay. What brings you here? Maxaa ku keenay? Okay, qofka kuu soo galay, maxaa kugu caawiya? What brings you here? What are you doing here? Waryaahe ma adigiiba? War xaggan maxaa ku keenay? What are you doing here? I miss you so much. Aad baan kugu xiisay. Why have you come here? Maxaad xaggan u timid? What a surprise. Waa surprise ayaad ii samaysay. What a surprise to meet you here. Inaan halkan kugula kulmo waxay ii noqotay arrin la yaab leh. I'm surprised to see you here. Nin baa lagu yidhi xafiiska dan baa kaa gashay, xafiiskii waxaaba kaaga horreeyay qof aanad garanay. Qof yacni aad horey usii garanaysay baa kaaga horreeyay. Aanad filanayn, laakiin iska saaxiibka ama wax kaloo si kale aad u garanaysay. Waad farxi, waana la yaabisan. Waad u soo gasho, waad aragtay markaa soo horreysa. Oh, Khalid ma adigiiba? I don't believe my eyes. What brings you here? Waa markaa qofka kale aad weydiinayso. Markaad isagii aad la hadlayso waxaa ku leedahay what a surprise. What a surprise to meet you here. Inta ma isfahanay? Waa sax inaad fahanteen baan rajaynaya. Haddaanad fahmin videoga waad haysataa saaxiib. Adaa ku ceeshanaya, ku ceesho ilaa aad ka fahamto. Wixii awooddaada ka baxsana waad isoo wici, nambarkayga waa ka xagga sare saaran. waa wada arkaysi nambarkayga. That's my WhatsApp number. WhatsAppka iga soo qabta insha Allah. Waayo qofkii baad aragteen waxaad rabtaa inaad ammaanto, waana samaana. Soomaalis ma ammaanto, laakiin haddana waynu samaanaynaa. Marka qofka markaad rabtid his appearance inaad comment ka dhiibato oo sida uu eegyahay aad wax ka sheegto, waxaad dhihi kartaa you look different. Waad isbedeshay eh. You look as beautiful as ever. You look as beautiful as ever. Sidaadii unbaad u qurux badan tahay. Sidaad weligaa u qurux badnayd ayaad u qurux badan tahay. You look smart. You look so nice. You look so beautiful. You look hot. You look hot. Hot waa kulayl dictionary-ga haddii aad weydiiso. Laakiin you look hot qofka markaad ku tiraa it means you're beautiful. Waad kulushahay maaha. Qof kasta tan kuma dhigi kartid yaa. Qof aad ka biicayso ama aad wax hadallo aad hoosta u yergelinaysid ama wax kale aad ka rabto aad kuu dhihi
maamulahaaga dadaad family tihiin iyo waxaas u isticmaali maysid you look hot but it means you are beautiful. Waxay ka dhigan tahay waad qurux badan tahay. You look fabulous. You look awesome. You look handsome. You look great. You look wonderful. You look lovely. You look like an ambassador. You look like a model. Model waxaa la yidhaha kuwan dharkii waxaa xayeysiya. Model badoo egta waxay ka dhigan tahay jirkaagu waa maasha allah. Waad isdhistay, waad ishagaajisay, waad isqurxisay. Waaye qofkii waad ammaantay maxaad ku oran qofku hadduu ku ammaano wuxuu doona hadduu kugu ammaano thank you baad ku leedahay. Okay, maxaad ku dhihi qofku markuu ku ammaano thank you mahadsanid baad ku leedahay, wax kale u raacinba maysid. Thank you. Waaye kadib qofka markaad is ammaantaan kadib waxa ku xiga iswaraysada qaraabo waraysay. Okay, how is your sister? Ka waran walaasha. How is your brother? How is your wife? How are your parents? Waalidiinta ka waran. How is your husband doing? Ninkaagi ka waran. Intaa waxaad uga jawaabaysaa she is doing fine. Way fiican tahay. He is pretty well. Aad buu u fiican yahay. They are fine. Iyagu way fiican yihiin. Intaa ma isla fahanay? Okay, qofkii waa xafiiskaagii kula taagan sare joog ku wareysan maysid waxaad doon inaad fadhiisiso kadibna cabitaan aad siiso ood afka u yar qaboojiso soma. Hadaladan baad isticmaali markaan. Guys, cashirkan waxaa ku jira cashiro badan baa ku jira. Waa inaad muraajacaysaa, waa inaad dib u soo akhridaa, waa inaad is isticmaashaa. Okay, that's the only way you can improve your speakingkaaga. Sida aad ku horumarin kartaa waa inaad ku celcelisaa. Haddii aan degdeg u hadlayo, if I'm talking too fast, there is a section on YouTube. Meel waxaa jirta YouTube-ka aad codka ka yar slow ka dhigi karto. Ka dhig hadaad fahmi weydaan inaad soo weydin. Offering something to drink or eat. Haddaba qofkii markaad ku leedahay waxaan kugu keeno maxaad ku oran. Can I get you something to drink? Wax la cabo ma kuu keenaa. Can I get you something to drink? Wax la cabo ma kuu keenaa. Can I get you something to drink? Can I get you something to eat? Wax la cuno ma kuu keenaa. Akhlaaqiyan ma wanaagsan inaad qofka weydiisad inaad soo hordhigto un baa la qaatay. Laakiin haddii ka marsan weydo oo aad weydiinaysid waxaad oranaysaa can I get you something to eat or can I get you something to drink? Ama waxaad ku dhihi kartaa would you like something to drink? Would you like something to eat? What would you like to have? Tea or coffee? What would you like to have? Tea or coffee? What can I offer you? Tea or coffee? What can I offer you? Do you fancy something to drink? Ama qofka markaa la inama ribal dibadaan wax ku soo wada cabno waxaa la let's go for a drink. Let's go and get coffee. Let's go and have coffee. We are having our lunch. Wanu qada tegiye. Join us inala soo qaday nagu soo bir. Okay, qofka markuu ku casuumo jawaab caynkii aad siinaysaa. Okay, jawaabtaas videogu si una inoogu dheeraan lessonka kale ee ku xiga lesson 11 ayaynu taa kaga wada hadli doonaa. Go to lesson 11. Thank you very much for sticking to the end till the end of the video. Videoga maadaama dhamaystay aad baad mahadsan tahay. Wixii su'aalaad qabto iyo comment sectionka ayaad inoo soo dhigi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.